anigoo ah senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ahna xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga dib u eegidda iyo la socodka dastuurka labada aqal waxaan halkan ku wargelinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in 30kii bishii December 2017 markay saacadu ay kowdii doornimo ay si sharci darro ah iyo xadgudub ah ay u soo weerareen gurigayga ciidamo laga soo amray dugsiga tababarka General Gordon oo ay maamusho dawladda Imaaraadka kuna yaala degmada Hodan iyagoo kaashanaya ciidanka nabad sugidda qaranka NISA ee gobolka Banaadir dhacdadaas foosha xun xanuunka badnayd oo ay ujeedadeedu ahayd in laygu khaarijiyo nafteydana laygu dilo laakiin Ilaahay amarkiis aan uga badbaaday hase yeeshee waxay igu reebtay murugo xoog leh iyo argagixin loo geystay qoyskayga iyo carruurtayda waxaana dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaas sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka mid ah ilaaladayda laguna magacaabo Xidigle Siciid Xuseen Xursi ilaa haddana isbitaal ku jira marka aan soo gaaray gurigaas saacad kadib dhacdadaas waxaan la kulmay shacab caraysan ama ka kacdoonsan weerarka guracan ee gurigayga lagu soo qaaday anigoo ah oday Soomaaliyeed kaashanaya waayo aragnimadayda dhowrayana xasiloonida iyo deganaanta dawladnimo haykalka siyaasadeed iyo midka xileed ee aan u hayo qaranka intaba waxaan go'aansaday in aan ka hortago qalalaasahaas saamaynta weyn ku yeelan karay bulshada magaalada Muqdisho isla markaasna fursad aan u siiyo madaxda qaranka iyo hay'adaha dawladeed ee ay qusayso baarista iyo go'aanka gaaridda cidda ka dambaysay weerarka laygu soo qaaday sidaas daraaddeed waxaan marka hore ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre oo si degdeg ah uga muujiyay dareen falkaas dambiyeedkaas uga muujiyay igana soo tacsiyeeyay una magacaabay guddi baara weerarkaas laguna soo qaaday aqalkayga waxaase nasiib darro ah in 33 maalmood kadib aysan ka soo bixin wax tallaabo sharci ah oo laga qaaday weerarkaas saraakiishii mukhaadaraadka Imaaraadka oo fulinayay gurigayga weerarka lagu qaaday ayagoo adeegsanayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay tababareen gacantana ku hayaan isla markaasna kaashanayeen ciidanka NISA ee gobolka Banaadir haddaba maadaama lagu xadgudbay karaamadaydii iyo xasaanadaydii dastuuriga ahayd welina aan dareensanahay in ay jiri karto khatar igu wajahan naftayda iyo qoyskaygaba qof kasta oo madaxda qaranka ay ku imaan karto ee dawladda federaalka ka mid ah
xil kasta oo dowladda federaalkana xil ka saaran yahay dhowrista amniga iyo xasiloonida dhammaan shacbiga iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaan ka codsanayaa xubnaha baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada aqalka sare iyo golaha shacabka iyo guddoonkooda inay guddi u saaraan golayaasha si ay u soo hordhigaan arrintan horseedi karta khatar ku wajahan jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed, maadaama ay caddahay in ay jirto faragelin qaawan ee shisheeye.